waa dalka libaaxa halkan waa beerta xayawaanka ee ruuxa ee dalka Tansaaniya waa goob sanad kasta libaaxa imtixaan lagaga qaado qaar xoog badan oo logasiyeeda ayaa kaga soo daga buuraha waa kuwani waa qaar xoog badan oo aad u tiro badan jilaal kasta waqtiyada qalaylaha halkan ayay ku soo dagaan iyagoo raadinaya biyo libaaxa waxay ku ridaa cabsi badan kolkuu arko tiro badnaanta markastoo logasiyeedku tiro badan tahay libaaxa waxay ku ridaysaa cabsi weyn maamulka iyo awoodda biyahuna waxa uu ciirayaa dhanka logasiyeedka waa biyo mareenka ruuxa waana goobta isugu yimaadaan dhammaan duurjoogtu waa biyo mareenka kariyaalta ee rogmada 100 mayl balse inta badan waa uu qalalan yahay waxaana ku xiran yahay oo kaliya taa xilli roobaadka biyaha oo yaraada waxa ku tiirsan nolosha libaaxa xayawaanaduna halkan ay isugu imanayaan isaguna waa uu gaarsanaya libaaxyadu way indhaynayaan iyagoo eegaya meel ay ka dayacan yihiin kadibna halkaasi ay ka weerara balse logasiyeedku way ka horhaysaa goobtani waxa ku sugan waqtiyo badanna way iska hor yimaadeen waxaana u soo jeehaysanaysaa xagga libaaxa iyagoo tiro badan wadajirku waa xoog xataa dhalahoodu way badbaadayaan kolka ay wada jiraan logasiyeedku balse libaaxyadani maaha qaar degdegaya waxaa ku jira laba waaweyn 6 dhadig ah iyo 3 gabaroon oo yaryar libaaxyadani waa qaar cajiiba waxay tijaabinayaan iska caabinta logasiyeedku inta ay leegtahay waxaa ku jira dibiye waaweyn kuwaasoo looda hareeraha ka raacaya isla mar ahaantaasina aan u ogolaanahayn libaaxa inuu soo dhex galo marka ay sidaas isugu duuban tahay logasiyeedku waxay ka takhalusi kartaa libaax walba libaaxyadu waxay ka digtooyin khatar walba waxay kaga tagtay logasiyeedku dhaawac mid yar oo ka mid ah libaaxa hooyadu maalmaayay sugaysay inuu ka soo kabto midka yar balse midka yar caga baruurka ay waxa uu muuqdaa mid aan la jaan qaadi karahayn qoyska ugu dambeyntii qoysku waxa uu go'aansaday inay sii socdaan isla mar ahaantaasina sii qaraab tagaan waa dhaawac waana daciif waxaana lagaga guuray cidla
waa xusuus oo kaliya in halkan biyo mari jireen waxaana roob ugu dambeysay muddo bila ka hor waqtiyada roob la'aanta waa meel aad u kulul waxaan u gaadhaa temperature-ku 100 degree oo Fahrenheit waa qaar daansi badan isla mar ahaantaasina cadho badan u qaba kuwan libaaxa kuwa da'da yar ee libaaxu way isku dayeen balse waxay u muuqataa loodu mid aad u digtoon waa mid aad u kalsooni badan waxaanu aad ugu soo dhawaaday libaaxyada kalsooni badan wax dhibana kuma hayso halkani inay joogaan qaar ka mid ah libaaxyada waxoogaa cabsi iyo baqaa ayay ka qabaan kuwani logosiyeedka kaliyaata waxaa dhib ku haya waa arka libaaxa inta kale wax cabsiya kama qabaan dibiyadani weynidiisa ayaa siisay inuu noqdo midka ugu xoog badan leh godadka biyaha waa mid aan cidna uga cabsanahayn kolka uu cabayo waa maroodiga guurguuritaanka logosiyeedka ayaa dhiirinaan siisay libaaxyada waxay indhaynayaan mid daciifa oo gaar uga baxday logosiyeedka oo cunaa balse tira badnaantoodu waxay ku fiican tahay inay isku tijaabiyaan midka xoogga badan la sidaas aan jeclaan lahayn waxa istijaabinaya kuwa da'da yar leh iyadoo hooyadu ka daawanaysa dusha way adag tahay mararka qaar in la kala garto ka wax ugaarsanaya iyo kala ugaarsanayo hooyadu dusha ayay kala socotaa iyadoo eegaysa khaladaadkooda way dadaaleen balse kuma aysan guulaysanin isku daygan waxa uu ku dhamaaday natiijo la'aan balse dagaalku waa mid socon doona waxay heleen khibrad ku filan libaaxyada yaryar waxaanay caawin doontaa waqtiga dambe waxa uu dhaawacay mid ka mid ah waana mid aad u xoog badan geesihiisuna aad u fiiqan yihiin dhammaan dibiyadan logosiyeedka waxay ka fadhiisteen xilligii saarashada waxaana gaar uga baxeen logosiyeedkii waxaanay u diyaar garoobeen oo kaliya inay la dagaalamaan libaaxyada waxay ku qabowsanayaan dhiiqada waqtiga la joogo sanadkan dhiiqadu waxay u tahay wax walba way ku qabowsanayaan sidoo kale waxay ka dilaysaa tulinka
sidoo kale doofaarka iyo maroodiga ayaa kala siman ku qubeysiga dhoobada. maalmahan biyuhu sii gorayaan dhooqadu waa raaxo balse waa maalmo tirsan. waxay isugu yimaadaan xayawaano kala duwan oo tiro badan balse halkan khatarteeda ayay wadataa. raxantani labadii cishaba maalin ay halkan yimaadaan waxaana aad u cabaan biyaha waxaana ka qayb qaadanaysaa inay amateedka wax uga tarto. balse webigu wuxuu soo jiidanayaa dhammaan duurjoogta xataa waxaa imanaya maroodiga. libaaxa iyo maroodiga inta badan colaadi kama dhaxayso balse inta badan waxaa lagu yaqaanaa midka labe libaaxa inuu dilo dhalaha maroodiga. balse libaaxu cabsi badan ayaa uu ka qabaa maroodiga. ma jiro wax heshiis oo ka dhaxeeya maroodiga iyo libaaxa. libaaxuna waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay xayawaanada aad uga fiirsada cidda uu la dagaalamayo. waxaa soo food saartay bahal gaaja muddo 4 cisho waxba maanay cunin. waxay meel dhow ka arkeen doofaar. libaaxyadu waxay ku tiirsan yihiin kaymaha iyo dhul. waa uu ku xoog badan yahay laba laab waxaana dhibaato kala kulmeen midkii laba. kuwa dhadiga ahi waa inay sugaan cabaar. waa cadceedda kulaylka badan ee dhamacda ee duhurnimo ayaa bilaamatay halkan ruuxa. logasiyeedka iyo libaaxa waxaa ka dhaxaysa cadaawad aad u baan. way is hor fadhiyaan iyadoo midba kale jaanis ka raadinayo. haatan waxay ka harsanayaan oo kaliya waa cadceedda. run ahaantii waxaa ka dhaxeeya dagaal qabow kaasoo ku salaysan cunto raadis iyo isdifaac. mid kasta waxa uu iska eegayaa midka kale. waxay ka marayaan caqabad weyn qolyahan libaaxa ah logasiyeedka xooga badan leh kuwaasoo difaacaya kuna xeeran logasiyeedka inta kale. waa qaar ka tamar badan libaaxa waana qaar ka miisaan culus kuwaasoo u adeegsanaya xoogooda iyo miisaankooda inay dub riixaan libaaxa. kuwa lab ee logasiyeedku waa qaar aad u feejigan waxaanay u diyaarsan yihiin dagaal.
libaaxyadu waa qaar daalan sida caadiga ah waxay maalintii seexdaan 20 saacadood balse ma aha meelaha looda ku dhow waa yara dhakoolayaan iyagoo maanka ku haya in aanay cunin cunto sidaasi u buuran garanuugta iyo daanyeerka oo wada jira ayaa sidoo kale halkan daaqaya iyagoo dhanna ka harsanaya geedaha caleemaha leh ee halkan ku yaal waa mid feejigan oo markaba wax ogaanaysa garanuugtu daanyeerku wuxuu ku qabaa faa'iido weyn oo markaste waa uu ka agdhow yahay mar kale waxa uu muuqatay libaaxyada fursad ay ku ugaarsan karaan balse labadani waa qaar aad u feejigan tallaabada koobaad ay qaadayaan waa inay u soo dhuntaan ugaadha balse mid yar oo ka mid ah samir ma laha isla markiiba digniinta ayaa isqabsatay waxaan uu ka qasay ugaarsigii dhammaan garanuugtu goor hore ayay yaacday balse daanyeerka ayaa weli geedka saaran daanyeerku waa la soo gaaray waxaanu aaminsan yahay inuu geedka ku baxsan karo libaaxu geedaha uu koraa balse ma aha mid sidaasi u fogaan kara waxaanu gaadhaa 3 mitir oo kaliya sidaas oo tahay wuxuu door bidaya hanjabaada iyo kurkurka waa xilliga ay sii socon lahaayeen raxantan libaaxay mana yaqaanaan meel ay ku wajahan yihiin libaaxyadu kolkay waayaan calaf iyo ugaar ku filan mararka qaar waxay socdaan 30 mayl xataa hadday ka baxayaan xadkooda balse nasiib wanaag libaaxyadan xuduudoodu waa mid aad u ballaaran haatan waxay ku sugayeen aaga webiga halkaas oo ugaar laga waayin xataa hadday qalalan tahay oo tahay mid biyalaana waxa soo baxday libdhada iyagoo wali wax ugaarsi aan helin balse mid ka mid ah raxanta oo dhadiga ayaa iyadu gaar uga baxday kooxda waxay leedahay sir u qarsoon waxay jiraan maalmo kooban indhuhuna way u dilaaceen waa qaar yar oo aan caawimo badan haysanin ilaa muddo bil ay ku qaadanaysaa inay ku biiraan raxanta inta kale kolka ay hooyadood ka maqan tahay difaaca kaliya haystaan waa inay ku dhuuntaan geedaha hoostooda kolka ay koraanna waxay noqonayaan hub qarsoon dhulkani mararka qaar libaaxu waa dhulka kaliya uu isku bedeli karo dhagax balse hal shay ayaa dubahaya raxanta oo dhan haatan waa fursad weyn waa goodirka
dhabagalka dhuumashada iyo dhagax soo ekaysiintu waxay dhaxal siisay faa'iido weyn. wada shaqaynta noocan kale waxay dhaxalsiin kartaa libaaxyada xataa inay dilaan ugaadha ka weyn labalaab iyaga. midana waa kacdoonka wada shaqaynta. marka ay tiro badan yihiin libaaxyadu waxay door bidayaan midda weyn ee ku wada filaanaysa taasi u suurta galinayso wada shaqayntooda. raqda sidan oo kale loo wada qabto mid kasta meel ayuu ka galaya. libaaxyadu ma oga cuntada ku xigta inay heli doonaan iyo inay heli doonin, sidaas oo tahay kolka ay raq helaan way marinayaan iyagoo laga yaabo in 100 kiilo oo hilib hal meel ay ku wada cunaan. balse mid kamid ayaa la filiqday. waa yara dhakoolayaan iyagoo caloosha ka buuxsaday hilbaha daraga ee goodirka. hilbaha hore looma dheefshiido waxaana libaaxyadu ku qaadanayaan saacadaha soo socda jiif iyo daal. way ciyaarayaan kuwa yaryar iyagoo aan meelaba wax dhibaato ka qabin. way ciyaarayaan iyagoo birinbirqaynaya isla mar ahaantaasina ku dheelaya kuwa waaweyn ee qaangaarka. balse dhibaatada kale waxay tahay halkani waa meel dulin badan halkaas oo aan si xasiloon loogu noolaan. waa bahalka loo yaqaan dhuuga kaas oo raaxada ka qaaday libaaxa iyo logosiyeedka labadaba. waxay uga yara baxeen gees halkaas oo aanu ku badnayn iyagoo haar yar ama meel yar oo taag ah fuulay. waxaa intaasi u dheer duqsiga kaas oo ka daba jooga dhiigga ay ku leeyihiin afka iyo cagaha. bahalka loo yaqaan dhuugu waxa uu ka mid yahay dulinka duula waxaanu dabjoogta iyo duurjoogta labadaba ku keenaa xanuuno badan oo ay ka mid tahay inuu daciifiyo iyo inuu hurdada ka qaado. waxay la darsayaan xanuunada uu ku sababayo dulinku haddii aanay si degdega halkan uga tagin isla mar ahaantaasina aanay uga fogaanin meelaha uu inta badan ku badan yahay. waxaa ku soo dhawaatay logosiyeedka isagoo soo badanayo dulinku qaar ka midna sirqeeyay. waqtiyada qalaylaha iyo abaarta ayuu ugu badan yahay dulinku. waxa uu ka dhashaa boorka iyo dhaska ay habeenkii ku hoydaan duurjoogtu. waa waqtiyada ugu kulushahay halkan ruuaha. duurjoogtu waa waqtiyada ugu baahida badan tahay biyaha. geedaha ugu harka yar leh xataa halkani waa qaar dahaba.
lo dibadeedku waxay dareemayaan dhibaato weyn waxaanay luminayaan qayb ka mid ah miisaankooda. kolka ay godadka biyuhu guraan loogisyeedku waxay socdaalayaan ku dhawaad 10 mayl sawe helaan biyo cabaan. kolka ay socdaalayaan kuwa daciifka waxa gelinayaan dhaxda si aan ula hadhin libaaxu. libaaxyadu meel laba kaga mahrayaan waana dabagalayaan. waxay soo gaadheen meel biyeysan balse way ka shakiyeen waxaana uga yara istaageen dubiyagoo la hubinayo. waxa xagga hore iyo xagga dambe ka raacaya qaar xoog badan oo aad u tamar badan. waa qaar aad u tiro badan waxaana ku soo dhaadhaceen goob ka mid ah webiga halkaas ay ku sii haarsan yihiin wali xogaa biya. maalintii waxay u baahan tahay inay cabto ilaa 4 galaan oo biyo loogisyeedku waana qaar aad soo ciriiriya. balse daanyeerku digniin buu bixinaya. waa digniin beena oo u diray daanyeerku taasoo kaga yaryanay biyaha si uu helo space uu ka cabo. sidoo kale lo'du haday midido way wada dilaysaa. waa horweyn loogisyeeda halkan loo kala libaaxuna ku ugaarsadana waa mid aad u adag. kuwa lab ee loogisyeedku waxay eegayaan gadaal iyagoo bal inuu eegaya inay ku daba jiraan cadaawe eryanaya. balse waxa arkeen wax ka cajabiyay waa mid aad u yar waana daanyeerka. kaliya halkan kuma tirsan libaaxa iyo loogisyeedku balse makhluuqaad kale ayaa ku tirsan oo ay ka mid tahay shimbirta loo yaqaan huriyad. waa shimbir leh heshiisa. shimbirtana maalintii waxay cuni kartaa ilaa 7,000 oo shilina waxaana u qabanaysaa adeeg aad u qiimo badan oo shakhsiyadeed. labada dhanba faa'iido isku qabaan mid shilinta laga gurayaa midka kalena cunta ayuu helaya. libaaxyadu dhugasho dhow bay u leeyihiin. waxa mashquuliyay shimbiraha waxay u soo socdaan xaggani si ay u daaqaan. mararka qaar waxay qabtaan shaqo ilaala ah. shimbiruhu waxay u direen dibiga ogeysiis iyagoo marqaata ka wada duulay. walow miisaankiisu culus yahay haddana waa mid aad u dheereeyay waxaanu dhex galay dibiyada kale isagoo dabada taagaya taasina waxay u tahay digniin. si uga badbaadi karo waa inuu ku soo jeesto isla mar ahaantaasina isticmaalo geesiisa. iyaga laftooda geesiisa waxay ka qabaan cabsi weyn waxaana uga dhex bixi karaan si fudud. tanina waxay u horseedi kartaa iyaga dhaawac weyn. dibigani hore ayuu la dagaalamay libaaxyada waxaanu kala baxsaday noloshiisa balse kalama baxsan dibkiisii.
khibradda kaymahan waa mid kaliya ee lagu baxsan karo. libaaxyada dhinacoodu waa inay samraan. cunto sidaasi u badan si fudud laguma helo. logosiyeedkuna waa kuwa ugu adag ee la ugaarsado. meel u jirta dhowr mayl ayay hooyadii dhalaheedu ku silacayaan. ay duureedka ayaa ka agdhow. waxay ku jeedaan oo kaliya naftooda haatan, balse ugaarsiga waa qaar aad u khatar badan. kolka ay gaajaseen xataa waxay cuni karaan dhurwaaga kaligiya. waraabaha iyo ay duureedku waa khatar. hadday helaan dharaha libaaxa waxay u badan tahay inay dilaan. dhowrkii cishaba waxay ka rartaa meel si aan loo soo urin karin. waxay u qaadaysaa xabad meel u jirta ilaa 1 mayl.